xabsigii waa kaad arkaysaan wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood qaybta ragga qaybta dumarka qaybta carruurta xafiisyadii ayuu intaasu ka kooban yahay weli muddo sanadana weli waa socdaa sanad haddana halkaasuu taagan yahay waxaan codsanaynaa wasaaradda maaliyadda lacagta naga dhiman ee ka dhiman qandaraaslaha inaad degdeg loogu soo daayo wakhtiga waad aragteen daacuun baalkii isku shuban baa ku dhacay waxaasna waa cidhiidhiga iskorsaarka xabsigaa ballaadhan ee weyn in lanoogu soo daayo ma aha xabsiga guri yaroo la dhisaya maaha waa xaafaddannana kharashkeeday leedahay wasaaradda maaliyadda waxaan mar labaad ka codsanaynaa wasiir samsam inay noo sii dayso ganacsadaha ninka maxay ahay qandaraaslana u sii dayso si uu degdeg oo noogu dhiso lacagtaa ka xaniban ayaan ka codsanaynaa inta ka dhiman sanadka si lanoogu dhammeeyo haddii ilaahaydmo waa 6 weeye waa 6 waxay markii hore intaan imide aniga waxa weeyaan waa 1 iyo kan 2 laakiin markii hore 4 waxay isbitaalka ku dhimatay oo la geeyey laakiin dhakhaatiirtaydii baan u keensado habeen iyo maalin xabsigan ku jira 58 ayaan ugu yimid 58 4 6 way dhimatay 52 hadhay 52 maanta 12 baa ku jira habeen iyo maalin waxa ku jira maxaan ku idhahdaa dhakhaatiirtii xaggaan ka keenay ciidanka ayaa jeelka ku jira jeelka gobolka bariga Soomaaliland weeye jeelkani waa jeelka ugu weyn maanta een haysano kaas weeye hadhow bari oo dhan wixii laga qaadayo weeye laga keeno. Assalaamu calaykum. Inta ugu darab ma ahay.